wiilku 10 jir ah oo dhaliyay goolkii ugu horeeyay ciyaartii dhex martay dalalka Sacuudi Carabiya iyo dalkeena Soomaaliya oo ku dhamaatay barbardhac hal iyo hal ayaa si weyn looga hadalhayaa caalamka oo idil gaar ahaan baraha ay ku kulmaan bulshada waxaana tartankaasi uu qayb ka yahay koobka Jima Cup oo ay ku tartamayaan 10 jirada dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta warbixintan waxaynu hayay wariyahayaga Cabdi Fataax Shiino ciyaartan waxay ku dhamaatay barbaro gool iyo gool ah waxay u dhaxaysay daa'irada xulalka Sacuudiga iyo dalkeena Soomaaliya kadib dhamaadkii ciyaarta ayaa waxa shaashadaha garoonka ay qabteen daa'ir kamid ah daa'irada xulkeena Soomaaliya ka oo aad uga qiiroonaya barbaraha ay kala kulmeen dhigooda Sacuudiga tajirow Allah hayo taariikhda noo gali taariikhda noo gali baraha bulshada ayaa aad looga hadalhayay dhowr iyo 10 saacadood ee u dambeysay midda soo jiidata qulubta muwaadiniinta Soomaalida ayaa ahayd in wiilkan yar oo aad uga qiirooday isla markaana uu dhulka seexday isagoo aad uga xumaanaya in xulkeena Soomaaliya oo mar kale barbaro galo tartanka daa'irada Jaamacadda Carabta Cabdirasaaq Maxamed waa wiil 11 sano jir ah waxa uu nasiib u yeeshay in xulka Soomaaliya uu ku matalo ciyaaraha daa'irada iskuulada wadamada Jaamacadda Carabta ee ka soconaya magaalada Dooxa ee wadanka Qatar waxay ahayd mid aanay arag daa'iro badan oo Soomaaliya mas'uuliyadda qiirada ka keentay Cabdirasaaq oo garoonka ku jira waxay ahayd wada kale oo caalamku ku arkaya in Soomaaliya ay dib ugu soo laabanayso saaxadda deganaanta adduunka waxay ahayd sidoo kale arin ay si qoto dheer u baraarujisay dhammaan daa'irada Soomaalida marka ay sidoo kale sameeyaan daa'irada wadamada caalamka warbaahinadu aad ayay u hadalhayaan tilaabadaasi tusaale hadii daa'ir Ingiriis uu meel ka baxso wadankiisa ku soo bandhigo qiirad tan oo kala dib ugu soo laabashadiisa wadanka gool iyo gool daraba waxa loo sameeyaa habmaamuusyo waaweyn oo lagu dhiirigelinayo daa'iradaasi baxay iyo kuwa kale ee dalka jooga warbaahinada gudaha kama daalan hadalhayntiisa sida darteed TV-ga Jubbaland oo kamid ah warbaahinada ka shaqeeya horumarada deegaanada Soomaalida ayaa fariin ku aadan habmaamuuska daa'irada Soomaaliya ku matalaya tartanka wadamada Jaamacadda Carabta u diraya dawladda shacabka iyo warbaahinada Soomaaliya عبد الفتاح أحمد علي شنو TV-ga Jubbaland magaalada Muqdisho